السلام عليكم أصحابتي قالي الشرفت لك وسودو هذا channel كيغا أميرا's Cuisine. أصحابي ما توحاني وذا ألاب إذن أنفعيسو especially هويوينكا أو هذا دلي أو أموش كجرو أو ربان إني علوش إسكجران ما شاء الله سودو هذا إذن ليا هدي يكون بتعيل أما علول لبضبو وكعاونيسا ألابتان سودو هذا فيديو إلا دمات كداوضا. waxaan ku bilaaweynaa cabitaankii ama biyihii cabi lahayd subaxii meeshan waxaa ku soo riday laba xabo oo laba shay waa liin dhanaan iyo sanjabiil sidoo kale inta waxaan ku haystaa geedkan u jeedaan geedkan waxaa la dhahaa ajweyn asxaabta ajweyn or karoma yani xawaaji dhudhub camal uu eg yahay mana aha xawaaji saasoo ogaada waxaad ka helaysaan supermarketka magaciisana meeshaas ay idinkugu soo qoraysaan inuu eg yahay asxaabta maasha Allah ajweynkan caadi ma ahan hooyooyinka oo raba inay iscaateeyaan oo especially ilmaha nuujiyo oo na umush ku jiro aad buu anfacayaa wuxuuna ka caawinayaa sidoo kale caanaha inuu u badiyo caanahuna ku badinaya at the same time wuuna ku caateynaya sidoo kale calooshu ka jaraya maasha Allah waxaan la heli karin waxaad ka helaysaan supermarketka saas uu eg yahay especially food pluska supermarketyada food pluska oo hindida ayaad ka helaysaan supermarket caadi lagama helo maasha Allah aad iyo aad buu u fiican yahay caanaha uu ku badinayaa sidoo kale uu ku caateynaya calooshan uu ka jaraya maasha Allah tabarakallah digsiga inta soo dhigto waxaa ku soo shubaya isla geedkii koodii hore waa inaad dabka saartaa laba qaada ku soo shubay waxaa kaloo ku soo xoqaya sanjabiisha ha ku badinin sanjabiisha aad bay u fiican tahay iyadana jirka way u fiican tahay dadka iscaateynaya way isticmaalaan inta badan aad bay u fiican tahay waa isticmaali kartaa maxaa yeelay shaaxba waa lagu daraa sooma marka waxaa kale ku soo darsaday laba koob oo biyo ah biyaha koobka caadiga isticmaalaysa wax kale kuma soo dareysid malabkii liinta way noo dambeynaysaa dabka ayaan saaranaynaa koodii hore ka bacdi markay noo soo burto adiga ilaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo ayaan sugayaa ka bacdi waan ka dejinaynaa maasha Allah soo jeedinba waa sanjabiishi iyo geedkii u jeedeen labadaas isku karinaysa maasha Allah aad buu u fiican yahay marka waa sugeynaa waa daboolaya ka bacdi waa ka soo dejinayaa karis badan uma baahno 3 mar 4 mar haduu buro waa diyaar adiga 5 daqiiqo camal u qabanaysa marka saas ogaada waa ka soo dejinayaa akana asxaabay waa ka soo dejiyay maasha Allah waxna kuma darin waa intii ay idin sheegay hadda waxaan sameynayaa waa miiraya waa muhiim ina iska mirtid ka bacdi waxaabiyaan ku darsan leen ayaa ku darsanayna gadaal ayaa laga isticmaalayaa oo ifaanteena fila soo wakaasa waa soo miiray asxaabay hadda waxa geeska yaalo waxa waaye waa malab iyo liin dhanaan waaye malabka waxa waa hal qaado oo buuxda ayaa ku soo shubaysaa ka bacdi liinta jab ayaa ku soo darsanaysaa wakaas asxaabay liintii jab weyn ma aha adigu waa iska quarter camal wax yar waaye liinta jabna waan ku soo jaray jab qafiif inta u jaray ayaan ku soo dhaxriday maasha Allah malabka hal qaado oo buuxda ayaa ku soo darsanaya dhadhanka ayuu kaaga hagaajinaya sidoo kale malabka aad buu u fiican yahay maasha Allah asxaabay sidoo kale cabid biyahan caloosha way socodsiinayaan way fiican yihiin maasha Allah waay saliidii wixii dhan way ka soo bixinayaan soo isticmaalay idin leeyahay soo tijaabiya muhiimadu waxa waay inay heshaan ajwaan geedka idin tusay kaasa muhiim hadaa heshaan maasha Allah soo hadda waxa waay subaxii adigu afkaaga qabtid ayaa isticmaalaysaa biyahan subaxii adigu afkaaga qabtid hadaa rabtidna markaa cuntada cuntid kadib waa cabi kartaa muhiimada ma ina subaxii adigu afkaaga qabta cabtid habeenkiina waa la cabayaa markaa cashiisid kadib duhurka xataa waa ka dhigan kartaa alaabtan ha ka baqin caanaha xataa way ku badinayaan sidoo kale suunkan waxa waay maasha Allah suunka inta umush ku jirtid waa kuwa muhiim ina xiratid
waayo caloosha ku fakanaysaa markay intay jilacsantaa laga faa'iideystaa waad xiranaysaa marka aad isbitaal ka soo baxdid buu xiranaysaa koodi hore iskuma dhuujinaysid gadaal ayaa maxeeday uga dhuuqsanay adiga markaas 3 wiig camal gaartid oo caloosha bugsato ayaa xoog u xiranaysaa laakiin wixii ka horeeyo oo intay caloosha qoyan tahay xoog ha ugu dhuujinin suunka intaad suunka xiran ka hor faasliinta aad ujeedaan ayaad marsanaysaan ka bacdi waad ku xiranaysaan waxaa jiro kareen la mariyo laakiin qof kasta ma heli karo marka saas darteed ayaa faasliinta idin tusay waa wixii la heli karo ugu fudud marka faasliinta dhidid badan ayay ka keenaysaa caloosha marka asxaabay alaabtan hal isku ogaada idin leeyahay gabdho haddii aad tihiin hooyo hadda dhashay oo maxay rabto inay iscaateyso oo waxyaabo badan ka baqayso alaabtan waa alaab caafimaad badan leh isticmaalan ku dhihi lahaa insha Allah waad ku guuleysanaysaan videogan haduu kusoo gaaro oo aad ka heshid please like ta ka baqayn dhiirgelin ay ii tahay hadii aad rabto inaan idin soo galiyo cashada iyo quraacda iyo waxyaabaha isticmaalo maadaama aniga hadda hooyo umul ka baxda aan ahay bilihii la soo dhaafay asxaabta insha Allah waan isticmaalaa alxamdulillah wayna anfacday marka ka faa'iideysta idin leeyahay adinkana gabdho waa wax healthy ah herbal insha Allah cuntada quraacdana waa soo gali video dhamaadkiis ka daawada like tana ha ka baqiilina share-ka insha Allah aad iyo aadna wada mahadsantii السلام عليكم أصحابتي دقالي أشرفت لك كسر هذا channel كي أميرة كوزين أصحابي وحني وضع عنتو شركة ما شاء الله كعاد يجلس قعتين يسوي ولا مدير جود هذا ما شاء الله أو very healthy كفايدي سو عنا إذا الله هاي سو هذا فيديو دود عجب قريو لايك قرية سي شير قرية إلا دمات كدعوة وعنتو ما شاء الله أدي أدوكو أنفعيسو هدي أتهاي قبر أما ويل إسعاتين آيو أما إسعاتين يسو إن شاء الله سو هذا إن الله هاي إلا دمات كدعوة وقراع آدي كو أنفعي دونتو هدي أد علوش تشريسيت أما شركة أن أعاتينيسيت إن شاء الله كفايدي سو عنا إذن الله هاي maanta waxaan ka sameysanaynaa quraacda white oats maxaa waaye waa kan mishaarida laga sameysto sareenka la jijabiyo waaye saas buu u egyahay maasha Allah aad iyo aad buu u fiican yahay cholesterolka xataa wuu daaweeyaa maasha Allah mishaari ahaan ayaan u sameysanaynaa meeshan buu igu jiraa baaquligaasaan kusoo cabiranayaa baaquliga buuxo qiyaastiisa waxaa koobka shaax oo buuxo okay marka asxaabta dabka saaranayna waan soo karinaynaa waxa waaye ceyriin asagoo ay sameynayna maanta waxa waaye asagoo karsan ayaa rabnaa inaan idinkaga faa'iideeyo dabka waxaan soo saartay digsigaas u jeedaan waxa ku soo shubayaa koob caano buuxo caanaha low fat waaye saliid badan ma lahan caanaha la odo laakiin waa soo miiray labeen dhan ma lahayn labeenta ha ku darin waayo waxa taa qof iscaateynayso ma marka caanaha marka ku soo shubtid qamadigi ama xeedi ayaa ku soo dareysaa xeed la maleena ka bacdi waa yara qasaysaa wax yar cusbaa ku soo darsanaysaa waa kaas asxaabta oo jeedin uu soo buraaya markuu soo buro yara adkaanaya wax yar biyo ku dareysaa soo u jilco okay wax sokor aan ha ku darin waayo sokor looguma talgalin qofka iscaateynaya ma garat marka ma sha Allah tabarakallah saa u jeedinba wuu karooyaa hadda saan waxaad ku karinaysaa adiga muddo 8 daqiiqo camal marna dabka waad dheereyn marna waad gaabinaysaa dadka qaar asagoo ceyriin bay cunaan inta biyo lala dhigo habeenkii dhan uu yaalayaa ka bacdi subaxii asagoo ceyriin ayaa wax la cunaa marka ani ceyriinka ma jeceli dhadhan ma leh marka asxaabteyda waxaan filaa in ay la socotaan waana ka dejinaa wax u dhiman malaha hadda ma sha Allah wuu karay waqti badan ma qaadanaysa hore in kugu sheegayba shubay saxankaas sidoo kale waxa way mooskaana soo jarjaraya aan korka uga soo sharaxaya insha Allah saas u ogaada maadaama uu lahayn wax sokor waa ina wax sokor leh ama ay fruuto oo sokor leh aad ku soo sharaxataa si oo hadhoodi markaad cunaysid dhadhanka
xoogahoo aad u dhibsanin ma garatay. marka mooska hal xabuu ahaa weliba jabaan soo jarjaray asxaabta. sidoo kale timir 4 xabo ah ayaan soo jarjaray. saa u jeediinba timirta dhadhan macaan bay leedahay markaa cunaysid kal iyo laabaan ku dhahay dhadhanka way kaa saxaysaa. sidoo kale wax dhiba uma keenayso qofka iscaateynayo. aad bay u fiicanta timirta caafimaad ahaan maasha Allah tabaarakallah. sidoo kale geeska waxaan soo saaranayaa looska caadiga ah. koobkaasna waa soo diyaarsaday. looska waa midka caadiga ah waa soo jijabin kartaa asoo budo ah isticmaali kartaa asagoo saanay waa isticmaali kartaa. mishaaridan qaabkan wax yar oo macmacaan afaarahana korka ka saaranaysaa. sidoo kale haddii aad sii aragtid inay dhadhan sii laheen wax yar oo maxay aheeday malab ayaad korka uga sii daadinaysaa. maasha Allah maasha Allah caadi ma ahan waa cunto aad iyo aad ku anfacaysa caafimaadkana aad ugu fiican adigoon wax jiim aadin maxay aheeday oo gurigaaga joogtid ayaad iscaateyn kartaa. iscaateyskana wuxuu u baahan tahay sabar iyo maxay aheeday juhdi badan iyo dadaal badan iyo cuntada iska fiirisid. cuntada cunays waa inaad iska ilaalisaa cuntooyinka saliida faraha badan waa inaad iska daysaa. hadii waa inaad jadwal sameysataa. marka hadaa rabtid inaad iscaateysid haday noqoto 2 bil camal oo weight weyn ku saaran sida 100 kiilo camal hadaa tahay waa inaad 2 bil cuntada iska reebtid qof sooman camal ahaatid. balse cuntooyinka waad cunaysaa sida biyo caadiga ah waad badsanaysaa. cuntooyinka saliida lahayn sida afaarahan camal qofkii u baahan qadadana iyo cashadana waa soo gelinayaa waa qofkii u baahan. okay commentiga igu soo qora insha Allah asxaabteeda. marka isku daya inaad sameysataan waxyaabahan soo gelinayno because iska hadal ma waa wax fitamiinaad badan leh healthy caafimaadka u fiican. insha Allah ha yareysanina waxaan wax dhadhan leh ma aha dhihina waayo qofka markuu iscaateynayo looguma talgalin wax macaan. okay marka insha Allah soo tijaabiya idin leeyahay alaabtana aniga idinka hubo aad bay u fiican tahay aad bayna u maxay caafimaadkeedu u fiican tahay. sidoo kale waxaad ka helaysaan supermarketka midka ku dhow mishaaridan ama oatskan ama sareenkan saa u taqaanid. sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.